حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي waxaan wax yar ka oran lahaa كلها لله maadaama dad badan ay i'tikaafsan yihiin ahkaamta i'tikaaf oo laga yaabo su'aalo inay ka yimaadaan هذه العبادة مشروعة عبادة شرعي وادجيي إلهي القرآن كوكو شيغا وحول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دمرك هلا عيارنا وحكدينا إذنكو مساجد كو اعتكاف سنة دقن القرآن كوكو شيغا اعتكاف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم انتي ومدينة تجي سنة والبا طبعا كدنبا واعتكاف جري محمد بن شهاب الزهري من أعلم التابعين ayaa dadkii waqtiga joogay buu la hadlayo wuxuu lahaa maxaa i'tikaafkiidin ku yareeyay nabigu kaleey salaatu wasalaam intii uu ahdigii madaniga ahaa ama intuu madiina joogay kamuu tagin be rasuulku sallallahu alayhi wasallam toban kan dambe masaajidku degi jiray marka laga reebo sanadkii ugu dambeeyay ee ilaahay xaqiisa waanba baxay sallallahu alayhi wasallam sanadka 20 ayaa uu ka dhigay 20kii maalmood dambe ayuu i'tikaafkiisu ahaa i'tikaafku waxa uu leeyahay goob lagu i'tikaafku waa deganaansho masjid la deganaado biniyat al-ibada ilaahay daraadii halka adoonku u galay u degay goobta lagu i'tikaafa waa masjidka aqalada iyo meelaha kale ma masjidka jamaca lagu tukado ayaa i'tikaafku ku qabsoomaa culimada qaarkood waxay leeyihiin saddexda masjid waaweyn ajriga badan ayuuma lagu i'tikaafi karaa xarameynka iyo qudus laakiin qowlka culimadu u badan yihiin waxa weeye maadaama quraanka ilaahay ku sheegay masaajid oo jamacu sheegay in masjid wala jamaca lagu tukadaba lagu i'tikaafi karayo su'aalaha waxa kamida cibaadada i'tikaafku waqtigeedu waa intee leeg sida loo badan yahay waxa weeye waqti yar oo kooban haddaad masaajidka fadhiisanayso oo i'tikaaf aad niyooto deganaansho ilaahay daraadii masaajidkaas yaxsul laka al-ajr ajrigi waad helaysaa maaha waqti dheer iyo uma baahna markastood masaajidka soo gasho fursadda waad ka faa'iideynaysaa i'tikaafka ma shardi buu u yahay inuu qofku sooman yahay oo waqti uu qofku sooman yahay inuu i'tikaafi karaamiyaa maya waxba shardi uma aha haddii saxiixa baa wuxuu tilmaamayaa Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo inuu nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam islaamka ka hor inuu nadar ku galay habeen inuu xaramka i'tikaafo nabigu markaa wuxuu nadarkaagii fuli aw fi bi nadrik habeenna lama soomo taas waxay daliil u tahay in i'tikaafku aanu shardi u ahayn inuu qofku sooman yahay cibaadadaas i'tikaafka dumarka ma i'tikaafi karaan marka laba shardi la helaha shardiga hore waxa weeye in fitna laga aamiya fitnada waxa weeye qofka sharaftiisa iyo dhiigiisa inaan midna waxba loo dhibayn oo haddii ay guuro gasho oo la helayo ama masaajidkiiba uu ka dhaxdhacayo ikhtilaad wax la yiraahdo isdhaxgal oo rag iyo dumar ay isku ibtiloobayaan maya wax kasta oo fitna ay soo gashaa waa la joojinayaa mubaax iyo sunnada ha ahaado waxa shardiga labaadna weeye idan in la helo haddii ay xaas tahay waa in sawjkeedu soo fasaxaa haddii ay waalid leedahayna waa in waalidku soo fasaxaa marka dumarka idin u sheegi dumarku waa ku dadaalaan waqtiyadan dambe way gucleeyaan marka i'tikaafayaan oo daacaad bay u soo dareerayaan Allah ka abaal mariyaa ka aqbaleen laakiin aadaabti islaamiga ahayd waa in la ilaaliyaa oo kamid ah sayna horaba soo sheegnay inaanu jirku qaawanaanin inaanay udgoon lahayn inaanay amar la'aan soconaynin inaanay kaligeed soconayn waxyaabahaas aadaabti islaamiga ahayd fiicnayd kamid ah i'tikaafka maxaa buriya saddex shay baa buriya i'tikaafka galmadu way burisaa sida quraanka ba ilaahay uu ku sheegay hadduu ninku xaaskiisa u galmoodo isagoo mu'takifa gaalnimaduna way burisaa Allah inaga nabadgeliyo mu'takifna waa ha iska xanaajiyo diinta caayida ila dadka ay leeysku gujadiisu way ku badan ama ilaahay buu caayay
lain ashragta layaxbadanna camaluk qofku markuu gaalnimo ku dhaco camal kasta oo uu ku jiraa wuu buraa waysadana ha ahaatee waxa saddexaad oo buriyay inuu iska baxa dee wuu ka kala go-ay mar haddii uu masaajkii ka baxay qofka muctakifka ahi lahu mubaaxaat waxyaaba u bannaan baa jira oo inuu ka shakiyo aanay ahayn waxaa ka mid a inuu u baxo baahi bani aadam xamaamadin dibadda ayuu kusoo xaajo gudanaya ama uu soo maydhanaya ama uu soo weysaysanaya ama waxbuu soo cunaya ama doobigu dhar ka soo qaadanaya ama madaxaa wareero farmasiguu ka soo iibsanayaa dawo arrimahaas waa waxyaaba mubaaxa u bannaan qof jaarka ah oo xanuunsanaya haddii uu jiro wuu soo mari karaa isagoon dul fadhiisanayn hebelow iska waran salaan muruura buu ku samayn karaa haddii qof u yimaado masaajidka intuu kasii yaro saaro wuu sii gelbin karaa wuu soo jiiraynaya siduu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam xaaskiisii usii gelbinayay usii kaxaynayay markay soo booqatay waxyaabaha uu mubaaxa waxaa ka mid a haddii uu marakanaaco yar xidhanayo ama meel yaroo xidhan masaajidkuna aanu cidhiidhi ahayn meelaha masaajidadu ay waasacayiin uu ka samaysan karaa khayma sagiira siduu nebigoo taambuugga yar u samaysan jiray calayhi salaatu wasalaam furaashkiibuu goglan karaa oo uu dhigan karaa wixii aan ummadda la joogta dhib ku ahayn waxyaabahaas waa mubaaxaad waxa uu qofku xaq u leeyahay ama laga doonayaa masnuunaad in si ay cibaadadani ugu fiicnaato waxyaabo badan oo sunnayaala uu hirgeliyo caqiidadiisa wanaajiyo cilmigiisa kobciyo cibaadadiisa farabadiyo cafiskiisa badiyo afartaasay kusoo ururi karaa caqiido wanaagsan oo inuu uga jeedno waa in ikhlaas iyo niyad samaan iyo ixtikaafku waa khalaawo berigii hore waxaa loo ogolaan jiray suufiyadii reer banu israa'iil inay sawmacad galaan oo halkaa ku khalaaweeyaanay caalamka ka baxaan marka waa khalaawo la ogol yahay ictikaafku waana sirtiisa fahamtaa marka muddadaa iyada ah qofkii khalaawadaas u gelayaa ilaahay daraaddii inuu galo niyadiisu ay khaalis tahayoo mukhlis uu yahay macnaha niyad samaan iyo daacadnimo waa inay jirto qalbigiisa waa inuu saa u safeeyaa waa inuu kobciyaa aqoontiisa waxaa laga yaabaa 10 cisho dee waa 24 saacadood maalinkiiba hadduu qofkii 6 saacadood maalinkii iyo habeenkii seexdo 18 saacadood baa usoo hadhaya 18 saacadoodbana wuu fadhiyaa intaa uu cibaadaadka wada mooyaane 6 saacadood haddaad cibaadooyinka u goyso 12 baa soo hadhaya 12kii maxaad yeelaysaa tamartaada miyaad cadinaysaa mise telefoonkii iyo internetkii baynu gelaynaa mise innagaaba afka jugisa siinayno sheekaysanayna intaaba waxaa ka wanaagsan barnaamij tacliimiya in la samaysto oo sheekh ay u dhiyaadhaan inta meesha joogaa hadday sheekh kala waayaan sheekhu shariid sheekha cajaladda oo isagaan cidiba kuu miyayno isagoo kala noocnoocyaa maktabadda yaalla ayaa soo dhiganaysaanoo waa xalqadaynaysa maalintii haddaa ka jartaan aad tidhahdaan 6 saacadood baynu ka dhigaynaa waxbarasho 6 kitaaboo min saacada ayaa la samayn karaa simisterka jaamacadda wax ku dhowaa 10 cisho la dhammayn karaa oo cilmi ah simisterka jaamacadda 4 waa 100 saacadood isba 100 saacadood wax ku dhowaa la samayn karaa aqoon in la barto 6daa kitaab ee matnigaa baynu 10 cisho ayaynu ka saaraynaa xalqad inoo sameeya 6 saacadood saacad badaris saacad badaris saacad badaris marka waxaa la kobcinayaa aqoontii fiqiga aqoontii tafsiirka aqoontii thaqaafadda caamka iyo tii caqiidada waxaa kaloo lagu dhex darayaa aada u muhiima wacdiga litarqiiqi lquluub si quluubtu ay u dabeecdo qofku ama waa inuu wacdiga dhegaystaa ama waa inuu isagu dadka wacdiyaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa laga maarmaan waxaa aada laynoogu saliday oo aynaan dafiri karayn oo wadaad iyo waranle wax ka nabadgalaa uu yar yahay baashii xanta la idhaah soo wax jira maaha xanta waa musiiba waxaynu maraynaa halkii soomaalidu ay yidhaahdeen dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa cawstaaq way xalaashanayaan mogta marka waxay ku leeyihin xooluhu cawska way daaqaan dadkuna dee xantuunbuu daaqaayo hanoo diidin wey wax istixlaal idan markaa in wanaagga la isfaro xumaanta la isu diido qofkii aad aragtay walaalkaaya inuu gef ka dhacay nasiixa loo fidiyo annasiixa wannasiixatu fi lmala'i fadiixa adigoo dhegta u saaraya oo u gooni yeelaya waxyaabahaynu aada ugu dadaalayno waxaa ka mid a si aynu cilmiga u kobcinayno inaynu cibaadada u badino waxyaaba aadaynu u badinayno waxaa ka mid a qur-aanka kariimka akhrintiisa waa inaad barnaamij ka leedahay imise jeer baad dhammaynaysaa 10 cisho
rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo dhigay uhooseyn saddexdii cishaba inaad mar dhammayso 3 jeer baad dhammayn karaysaa markaa qur-aanka inaad salaadihii sunnahaa badiso annaflu lmudlaq sunnihii sii daysnaa iyo sunnayaashii kale waktiga lahaa inaad dikriga aada u badiso wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat dikriguna waa shay kastoo laga abaalmarinayo tawxiidkii baa ka mid oo salligii nebigaa ka mid oo subxaana allahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar laa ilaaha ila allah adkaartaa inuu qofku wardiga aada u badiyo kumayaal isugu bixiyo waxaynu aada u badinaynaa ayaamahan aynaan halmaamayn way nagu yar tahay ducada caaisha waxay leedahay haddii laylatulqadriga nebi maxamed oo ilaahay waafajiyo maxaan idhaahdaa ducaysa buu nebigu oo maxay odhanaysaa allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cani adducaa ducada ayaynu badinayna wax kasta oo khayra intaynu halkaa joogno noocyadiisa kala duwan baynu khayrka badinaynaa waxaynu yaraysanaynaa 4 arrimood hadalka iyo hunguriga iyo hurdada iyo bixidda badan haddaad hurdada badiso haddaad cunada badiso hurdadaa badanaysa dee ujeeddadii loo yimidba maaha maad xaafadaadii tagta xaafadaadiiba seexan lahaydaad barkimada dheeraysan lahaydeen cunadana waad yaraynaysaa hurdadana waad yaraynaysaa hadalkana waad yaraynaysaa bixiddana waad yaraynaysaa shaydaan kolba uu ku gacan haadinaya wuxuu leeyahay imikana kaadi baa ku haysa imikana weysadaad jadiidinaysa mabay kaa jabinba intaa wuxuu doonaya inuu kolba ku soo saaro iyana waad yaraynaysaa 4 arrimood waa la yaraynaya 6 horena waa la badinayaa markaa mubaaxaadkii mubdilaadkii iyo masnuunaadkii intaa markaynu saa ugu dadaalno waxaynu rajaynaynaa inaynu dabxir ku samayno habeenkii qaaliga ahaa ee laylatulqadriga uu kugu soo beegmo ama adoo qur-aanka akhriyaya ama adigoo tukanaya ama adigoo ducaysanaya ama adigoo dikrigii cilmigahaa ku dhex jira markaasaa la odhan karaa khalaawadii uu qofkani galay wuu ka faa'iideeyey haddii kale oo halkaasunaad ka duryanta un internetkaasunaad ku jirto un haasaawahaasunaad jecda hayso un sharaabkaasunaad cabto un allaha sahlo wahada ma aquluhu waastaqfir allah حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله